Sidee ku heli kartaa paid VPN asagoo free ah? Soo dhawaada daawadayaal, waxaan halkan rabaa inaan idin soo gudbiyo qaabka ku heli lahayd paid VPN oo lacag ah si free ah ku heli lahayd adigoo bixinin wax oo lacag ah. Muuqaalkan ayaan rabaa inaan kusoo koobo. Fadlan haddii uu kusoo gaaro muuqaalkan like saar. Haddii aan ugu soo biiran waxaan rajeynaa inuu soo biirto. Waxaa imaanaysaa Play Store ayaa imaanaysaa kadib waxaa ku qoraysaa Asset Home ayaa ku qoraysaa. Kadib wuxuu kusoo saari doonaa app-kan ayuu kusoo saari doonaa. App-kan ayay soo dejisanaysaa. Aniga hadda wuu degsan yahay open ayuu leeyahay adiga laakiin waa soo dejisanaysaa. Kadib hadda open ayaan leeyahay. Kadib waxaa yar wareegsanayaa wuxuu ku geyn doonaa dashboard-ka Asset Home-kan. Kadib halkan wuxuu ku leeyahay login balse anaga hadda account ma haysano hagaajisanaysaa account ayaan hagaajinaynaa. Waxaan leenahay halkan aad ku dhufanaysaa create account baan leenahay. Kadib wadankaaga ku tusayaa halkan wadanka aad joogto. Aniga hadda wadankan ayaan joogaa Kenya. Kadib waxaan leeyahay continue. Kadib halkan wuxuu ku leeyahay email geli iyo password gasho ku leeyahay. Waxaan isticmaali doonaa Teammail-kan aan rabaa inaan isticmaalo email u isticmaalo. Marka Teammail-kan ayaan iminka soo qaadanayaa. Waana free oo ku isticmaali kartaa wax oo dhib ma laha. Kadib halkan email ku siin doonaa email-kaas aan qaadanaynaa. Login ayuu leeyahay. Kadib email-kan copy aan leenahay. Kadib waxaan kusoo laaban doonaa halkan aan kusoo laabanaynaa email-ka halkan aan dhigaynaa. Paste ayaan leenahay. Kadib wuxuu ku leeyahay password hagaajiso. Password hagaajinaynaa. Kadib halkan wuxuu keenay wuxuu ku leeyahay notification wuu soo diraa maaragtaa skip aan leenahay kan. Kadib wuxuu ku leeyahay verification email sent wuxuu rabaa inaan email-ka confirm gareyno. Marka waxaan aadaynaa team email-ka aadaynaa. Kadib halkan aan ku dhufanaynaa email noo soo diray. Verify aan leenahay marka. Marka waxaan ka leenahay confirm registration ayaan leenahay. Marka halkan aad ujeedaan hadda welcome to Asset Home ayuu leeyahay. Waxaan leenahay marka get started ayaan leenahay. Kadib halkan saddexdan option ku siinayaa. Waxaan leenahay option-ka noogu dambeeya oo try asset for free. Halkaas aad ku dhufanaysaa kadib continue aan leenahay. Kadib halkan labada option ku siin doonaa. Aniga waxaan xawilinayaa option-kan labaad protect your small business kadib continue aan leenahay. Kadib wuxuu leeyahay free trial was successfully activated ayaan leeyahay. Marka waxaan leenahay view trials continue aan leenahay. View trial details aan ku dhufanaynaa kadib continue aan leenahay. Halkan waxaan tusi doonaa marka details-kan type of trial expire date ku dhacaya ID activation key. Marka hadda activation key aniga ma baahnin. Waxaan imaanaynaa halkan ay ku qoran tahay overview. Imaanaynaa halkaas aan ku dhufanaynaa. Kadib wuxuu keeni doonaa page-kan uu keenayaa. Marka waxaan leenahay marka waxaan ku dhufanaynaa marka page-kan uu keenay. Meeshan features aan tagaynaa halkan features aan ku dhufanaynaa. Kadib soo jeedaan halkan labada option uu siin doonaa. Waxaan leenahay option-kan oo VPN. VPN aan ku dhufanaynaa. Kadib halkan soo jeedo email-ka inuu tusinayaa. Email-ka aan ku furanay marka email-kan aan option-kan aan leenahay select kadib continue aan leenahay. Soo jeedaan wuxuu ku leeyahay how many devices do you want to protect marka inta device oo aad markay aad ku isticmaasho oo aad protect garayso. Marka waxaa oran kartaa ilaa 10 device ayaa galashan kartaa. Aniga hadda waxaan gashanaynaa waxaan leeyahay 6 device aan leeyahay. Marka send instruction aan leeyahay. Marka waxaan noogu diri doonaa details-kaas email-ka noogu diri doonaa. Kadib haddii aan ku laabano team email-keeda aan ku laabano. Kadib back aan naano. Soo jeedaan noo soo diray email-ki. Noo soo diray email-kan. Markaan waxaan leenahay kan ugu horeeya. Marka la soo jeedin noo soo diray intan activation key-kan UNCA marka
activation keygan aan isticmaali doonaa activation codes aan isticmaali doonaa kadib haddana waxaan usoo laabanaynaa play store aan usoo laabanaynaa kadib halkan waxaan ku qoraynaa haddana set vpn aan rabnaa inaan soo gelino kadib waxaan leenahay search kadib vpn gan aan soo degi doonta set home is set vpn kan aan soo degi ana hadda wii degsanay open leeyahay balse adigaa soo install garanaysa oo u dhigi doonaa install kadib open aan leeyahay marka wuxuu ku leeyahay halkan continue aan leenahay marka saa ujeeda halkan wuxuu ku leeyahay vpn activation code marka waxaan aadi doonaa koorarka hadda uu na siiyey oo emailka uu na siiyey aan soo qaadanaynaa marka koorskana maxaa waaye waa 24 hours kadib waa expire garoweyn 24 hours bas loo talagalay balse waxaa ku isticmaali kartaa after 24 hours account-kan hagaasin kartaa oo SDOM ka haysan kartaa adoo isticmaala tim emailkan free ah saasaa ku wada karta marka haddaan qaadano midkan hubiyan nahno hubiyan leeyahay waxaan aadi doonaa halkan paste aan leeyahay paste aan ku leeyahay kadib waxaan leenahay activate aan leenahay saa ujeeda hadda vpn waan activate garaysanay oo paid vpn active garaysanay marka halkan wuxuu ku leeyahay location garto wuxuu ku leeyahay marka haddaanan locationka xulan karo intana location ay ku siinaya oo intana wadan ah ayuu ku siinaya saa ujeeda wadamo afrikaan ay ku jiraan aniga hadda waxaan rabaa tusaale ahaan territorialkan waxaan rabaa inaan qaato vpn oo US ayaan qaadaya hadda kan ayaa xulanaya Atlanta kadib halkan wuxuu ku leeyahay okay aan leenahay connection marka saa ujeedin hadda connected waaye marka haddii aan soo tijaabino marka wuxuu noogu xiran yahay Atlanta oo United States noogu xiran yahay marka haddii aan soo tijaabino aan fiirino vpn-ka bal inuu yahay strong iyo kale naqshada cusub aan soo furano Chrome-ka kadib waxaan ku qoraynaa website-kan la dhaho wuha.net ayaan qoraynaa kadib search aan leenahay kadib wuxuu tusin doonaa marka IP-da noogu xiran tahay iyo waxyaalahaas uu tusin doonaa saa ujeedin hadda kaas IP-da noogu xiran nahay iyo location-ka joogna Atlanta United States iyagoo aan socono marka meeshan anonymity wuxuu tusinaya 90% oo ah oo fiican 90 ninka ku hoosey ayaa ah then anonymous oo maxaa waa very weak marka wixii 90 wixii ka badan ilaa 100 waa la fiican tahay marka saa ujeedin hadda waa VPN sameynaya oo paid VPN bedelka lacag kala bixle stepkan option kan ayaa isticmaalaysa